على وقف صدي محاول دفاع ويس علم هذا هدو دون راعي أفر بلا دجال كسعود بالنت دجال كسوقش maalintii mursada dagaalka soo galay afar bilood dagaalka socday mursadana waa joogay calma hadana dooman ma raacin horta kow adigana 2 saac saleebaan bas kula dagaalam markaas waxa laga qabsaday inta xamar ka joogta dhan laga qabsaday ee rabiic horta kow mid kale ku sheegay waxay tahay anaga hadaan wax kasta sameeyno kursi ugu sareeyaan raadina laakiin anaga microphone ma noqono maalina guriga abgaal ka hadlo maalina guriga habar gidirta ka hadlo dadkan aaladaha ceelashay degan intay degan waa niman hiraab way habar gidir hiraab way hadaysan ahayn mar hore cagta la marsiin lahaa abgaal xamar waxa kula dagaalay boqortooyada ajuuraan oo kibirka ka batay iyo boqortooyada jidla la dagaashay ciribtayna marsiin meesha ka baxeen 9 jiida aawe 9 ajuuraan aawe laakiin habar gidir waa walaalahana waa talkeena dagaal siyaasadeed oo ah inuu fogaadana ma rabin حمرنا أنا إسكالها دفاعا كرنو لح يتبن حافظودا دفاعني أفر بلاد صومالي وين ورنا كدفاعني در إدارات إساق قبيل أنا وحكا كجر ملوغادينا كجري إساقا كجري دقلي مرفلا كجري أديقا قاس هوياها مرصدها كجري لح يتبن دقمان دفاعنا أنك مدينو دركن لي وابري هودن عبد العزيز شبس شنقاني كاران ياقشيت حمر وينه ورديقاي هاف كذا صومالي وين ورنا أو اسكت منا حمر هولداقي هودن هاف كذا كجوغين هورتا adigana 2 saac dayni meeshii aan kugu xudumay aan ku dhahmeydka inta ku duugo waxa difaaci weysa 2 saac difaaci weysa waxa tiri abgaal maantiya idin soo cararta rag qoryaha laha intay joogeen ilaan dhulka waa laga soo qabsaday rag oo qoryaha haystay intay u qaxeen Kenya may galaan Sacuud Kenya ka baxeen jizaarnimada waa halkiini waaye laakiin idinkoo meyd wato oo naagini ilmiina qaawan oo kabaha ka soo carara marinayn iskaleedii deji meesha lidin deji ana soo arkay ايش اللي جوجو قابلي انا سو ارك الهي كسكون هل حبه مكان ريبلن هبر قدر لكن انا يقول شكري سكن waxaan ku sheegayaa rabiico nuur xasan xuseen waxa tiri waa la bahdilay oo ra'iisul wasaare wuxuu qaatay safiir uu noqday waa European Union uu fadhiyaa wuxuu u fadhiyaa Europe oo dhan dhaqaalaha soo galay Soomaaliya isha laga controlay way kursigana wiil yar oo adeer uu ku fariisiyay laakiin rabiico hadaa wax tahay Soomaaliya waxa ka noqday madaxweyne waxa ka noqonayd ra'iisul wasaare waxa ka noqonayd xibin sara ka noqonayd maalin kasta microphone maxaa kugu ekay waxa kala too hadaladaadi kamid aha nimanka mursada difaacane aawa abgaalki war mursada haday difaacayaan waxa la arki lahaa dhulka mursadaha degan iyo dawlad joogto bariise hadoo wax difaacay abgaal ku dhex jiraayo dabada gashtay xariyaalo ka dagaalami lahaa bariise ama daynilo ka dagaalami lahaa albero xoreen laha jacari bargaano xoreen laha ninki tiisa dareela to kala ku daro waxa la ninka kabaha ka talneys kabiisa la fiirsha gurigaaga fara kuma haysadadi hadaa maanta ii dagaalamaysidna shaqaalaha sharafna kuma leed qiimana ma kulid laakiin aniga waxaan ku sheegayaa ninka gurigayga maanta ka dagaalamay anu ii shaqeynaya bariise haduu shaqeyna la fiisi dantiisu difaacaya mahana haduu wax difaacay xariyaalo ka dagaalami laha marka rabiic waxaan ku sheegayaa xamar waxay hagaagay Soomaaliya dhan markii hagaagto meydkan ku haysan lugahan jarjarno kaaraan ka sheegaysidna wabxaho habar oo 60 sano jirtay odageeda indhaha inta laga baxshay meydkooda la jarjaraa la soo dhigay waa dadkii ugu horeeyay oo al-shabaab ay qasho kuwaas uma jeedin miya adi habarta kaaraan lagu jarjaro ma u jeeda tan wabxa lagu jarjarayo ee meydkooda taada kale ceelbor waxa ka furan airport dhiiga looga miiro dadka oo wadnaha looga saaro weegiiba hal maalin diyaarad imaata eber mursada waa dhamaadeen afarta dayn la joogta ka har beerkooda waa la baxay mar hore tabahala Afghanistan buurooda saarna loogeey markii laga qabsaday airportkaas al-shabaab laga muxuu ahaa qabsaday waxa loogu tagay dad dhaafay kumayaal oo meydkooda qoloftooda iskor saaran tahay oo beerkii kaliya laga baxay habar ma rabiic waa facts waa dhulkiina warka ma haysin anaga kaaraan halka habaro lagu dilo sanadka hal mar waa sheegnaa laakiin idinka kiina qiimo ma weyn kugu fadhiyaanba dadkiina waa la haystaa waana la baaba'shay rabiico sakan adi maxaa maanta ku dhimanay ani maanta waxaan ku dhimanaa madaxweynaha la isku haystay jadada ugu sareeyay Soomaaliya ku fadhiya adiga wiilkan dhimanay ilaa ceelbur ilaa jacari bargaan ilaa xaladayni la ku dhimanay what for reason uu dhimanay isha al-shabaab madax kamatid xisb al-islaam madax kamatid dawladii madax kamatid meel walba microphone ka tahay ma microphone uu dhimanay rabiico Soomaali inta soo jirtay siyaasadeeda wiliga waxba kama noqonin markii wax la qaybsanayna cad kali baaxani qaataa marka la dhimanayna waa iga dhimasho badan tahay maxay ku dhacday rabiico ii sheeg hadaa wax noqonaysid siyaasadda Soomaaliya laga arki la Soomaaliya waxa soo maray xisbiga SPL 3 nin oo ugu sareysan ku laha adigoo karan la hawiye ah oo u dhigmo hiraab
حتى كوين هل نين كما هذا الحين waxaa ku xigay shanta golaha sare awoodda ugu sareysa Soomaaliya shanta golaha sare laba nin aan kula haan jiray markii dambe Xuseen Kulmiyaan kulaha 21 sano waxa ahaa madaxweyne ku xigeen ahaa 21 sano aan dhicin oo isbedelin waxaan noqday saddex madaxweyne wadanka ku yeeshay adiga ra'iisul wasaare iska daayay waa soo gaar laadahay ra'iisul baarlamaan xataa waa soo gaar laadahay Rabiico dhalashana labadana mis ku dhawin mid deegaankan ka hadlaya marka mid waliba Rabiic sida madaxdan u aflagaadis anaga kuma aflagaadeyno mid deegaankan ka hadlaya deegaanka xamar iyo agaariis hadaa degnaan leedahay laakiin aniga hadaan dhaho Streetham waxa ku yaalan 100 dukaan ay leeyihiin Abgaal ku yaalan oo adiga xataa waa taqaana 100 guri ay ka gateen way ku yaalan populationka ku noolna ayaga kaga badan Hindida iyo Ingiriiska degan hadaan dhaho Streetham aniga deganahay oo waa imaado waa degay aqli ma adiga dayni la waa degtay waa lagu dajiyay daad sid maalinta iimaanaysa taariikhda way taala haddana aqal xumadaada waxaan kaaga yaabay Rabiico waxa leedahay anigoo mursado ah Abgaalna waa kala saaraysa Abgaal ma ogtahay inuu yahay in Cismaan Daarandoole mudulood uu yahay hiraab markaas uu kula simaaya kadib markuu 7-8 soo tirsado adigii dhamaay karan la hawiye curidkiisa ahaana waxa rabtaa daynil ina isgeysid kaliga Abgaalna inta kala qaadid areemataan ku reebtaas aqli ma aha moogta reemataan waa nin Abgaal waay وانين محو اها ان شعل عثمان اهواي او مدلوده daarandoole mudlood ahwaay wuxuu leeyahay nin kasto mudlooda iska leh marka Rabiico waxaan ku sheegayaa maanta khasaara ku sugan tahay taas ogow dagaal hadii laba saac hal lafo Soomaali kaaga adkaatay ceeb meeshaas ay kugu qoran tahay Soomaali intii xukuno soo martay waliga kursi sare kamaada tagin waa dhimataa meel kasta waa ku dhimataa maantana Soomaali adaa ugu liitid oo hal degmo oo ku nabada ma jirto kulli al-shabaab ku haysto waxa kale ceeb kuugu filan libaaxii dhamaa ee mursado lahaayeen sariirtiisa Xasan Turki oo injir gashay oo wasaq badan u raaya lagu seexish maxamed qayaran caaw wuxuu joogaa Cabdicasiis uu joogaa ma tagi karo janaqo ma tagi karo wasiir aleediin xildhibaan aleediin daynilana ma tagi karo dhulkiina ma tagi karo ugaaskiina meydkiisa waxa duugta laba wiil ogaadeen al-shabaab godka ku riday oo tir Allah naxariis xataa yaal dhiin asagii ilaahiisi marka intaas ka badan ma ku dhahaye Rabiico ceebtas iska soo dhaqa horta ee soo gaara waxaan ka xumaay aniga maanta mudlood weyni iyo mursado in la is agdhigo because xoog iskuma dhigano tira iskuma dhigano tayo iskuma dhigano dhul iskuma dhigano deegaan iskuma dhalasho yees waa simana ani ma dhahay mursado waa laangaabo waasas waa niman maaragtay hawiye ah oo curadkii hawiye ah oo niman karan la qiimo weyn kala waa hawiye laakiin marka la dhaho tayo maanta waxay ka liitaan digili miriflay ka liitaan at least digili mirifla dhulkiisa maanta asaa haysta ogaadeen sararahooda ma jiif marka Rabiico hortana soo gaara maalintaan soo gaartiin kadibna la sheekaysta hadii kale meeshan baaltog waayo waxa aragnaa cid kasto la kaftamaysa jid lam yaa masajaalan shal u jeedo halka nagu dhagdhagaayo moogtaa marka maygu waa free